الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالية طبنات هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. خير أيامك، هل كان شيخ وحكو شيخ يا معلومة وكما قعابي مالمها كوة وخير بدن واكوة. خير أيام العبد على الإطلاق أدونك iyo qofka maalmihiisa si kuwa ugu fiican uguna fadli badan waa yowmu towbatihi ila allahi caza wajal. waa maalinta uu qofku toobad keeno, waa maalinta aada rabbi u laabato, waa maalinta alla aada xusuusato. maalinka kugu fiican maalmahaaga maalintaa weeye. wuxuu ku sheegay sheekhu macluumada kitaabkiisii zaadulmicaad uu ahaa in hore usoo marnay zaadulmicaadi fi hadyi khayr lcibaad ayuu ku xusay. waxaa kaloo sheekhu macluumo kale ashaddu anwaaci almuru'a. muru'adu waa sharafta iyo cizada, inuu qofku meelaha xun ka fogaado, waxa fiicanna uu raaco, dadka xunxun ka fogaado, dadka fiican lagu arko. wuxuu yihi sheekhu ina ashadda annaasi muru'atan ashadduhum mukhaalafatan lihawaa. dadka qofka ugu wanaagsan xagga sharafta iyo cizada, qofka ugu fiican waa qofka ugu daran inuu hawadiisa khilaafo. hawada iyo shaytaanka iyo nafta waxyaabaha qofka dhumiya ayay kow ka yihiin. waana wax uu qofkuba mararka qaar hadduu qabatinimo hawadiisa uu ka yeelanayo, ilaah buu ka dhigtaa. siduu rabbiba xusay, afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah waadalahu allahu calaa cilmin wakhatama calaa samcihi waqalbihi wajacala calaa basarihi ghishaawah faman yahdiihi min bacdi allah afalaa tadakaruun. marka afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah يعني هو كده. وانا حديث كي رسولك صلى الله عليه وسلم 3 منجيات و3 مهلكات. يعني مهلكات كا waxaa kamid ahayd hawo la raacay oo qofku hawadiisa inuu daba socdo, oo waxyaabaha qofka dhumiya ayay iyaduna kow ka tahay. marka dadka wanaagsan ee muru'ada iyo sharafta leh waa dadka hawadooda khilaafo oo garab mara wey. macluumada sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkii rawdatul muhibbiin ونزهة المشتاقين. كتاب لي هذا روضة المحبين ونزهة المشتاقين أيقول شيء. الأعداء الجهلة. معلومة كلا شيخ وحولي والجاهل الظالم يخالف بلا حجة. قفك جاهل كأه الجهل يسان الظلم أسي ديري هاي ووكو خلافة يا سوى واحد دليل هيسنين. ولو fiirso dadkan iskhilaafsan iyo dadkan doodaya iyo xataa diinta hadday rabaan ha ka doodaan, isagoo laga yaabo inuusan xuji iyo wax daliila haysanin buu ku khilaafi uu ku garab maraya. bimujarad khaalif tucraf waxa la yidhahda baa jira. khaalif tucraf, dadka khilaaf ha lagu barte dad baaba dhaqankoodu sidaa yahayba. hebel saasuu yiri, sheekh hebel saasuu yiri, yani ujeedadiisa dhan waa inuu culimada khilaafo si isaga loo sheego. marka jaahilka dhaalimka ah waa laba sifo aada u xunxun. jahli iyo dhulmi wuu ku khilaafayaa isagoon wax daliila haysanin, wuuna ku gaalaysiinayaa ama bidci inaad tahay buu kugu sheegayaa bilaa xuja. isagoo oon wax xujo a haysanin ayuu adiga wuxuu kaa dhigayaa qof ama gaaloobay ama bidciba. maanta waad aragtay si yar baa laisu gaalaynayaa. qof baa wax yar ku gaalnimo kugu xukumaya, ama inaad tahay qof mubtadica buu kugu xukumaya. waxaana laga yaabaa qofkaas isaga ah, yani isaga siiradiisa iyo dhaqankiisu inuu yahay midka ugu liita inuu yahay, adiga sidaa ku yeelaya. wuxuu sheekhu ku xusay macluumada kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin. waa kitaab aada u qiimo badan, 4 juz isaguna taqriiban aha. ayib, hidaayada faqru lhidaaya wax lagu magacaabay. walcabdu adoonku wuxuu u baahan yahay, adoonku mar walba wuxuu u baahan yahay ila alhidaaya fi kulli laxdatin wa nafasin.
addoonku qofku mar walba waxaynu u baahannahay hidaayada rabbi, hidaayatu tawfiiq, waafajinta eebbe subxaanahu watacaala inuu ina waafajiyo khayrka, inuu ina waafajiyo xaqa, inuu ina waafajiyo wanaagga ayaynu mar walba u baahannahay. waxa binu aadamka ugu fiican u helana waa hidaayadaasaa ka mid ah. laxdo kasta iyo elbiriqsi kastana hidaayada rabbi ayaynu u baahannahay. dhammaan waxyaabaha aynu la imaanayno oo dhan iyo waxaan ka tegaynaba, waxa xun aan ka tegaynana waa ilaahay subxaana watacaala oo shaygaa inagu baraarujiyey oo inuu shar iyo xumaan yahay ina tusay baynu uga tegaynaa, wanaaguna inuu yahay wanaag baynu ula imaanaynaa. macluumadaa sheekhu wuxuu ku sheegay risaala ibnulqayim ilaa axadi ikhwaanihi. risaala ibnulqayim ilaa axadi ikhwaanihi waxay ahayd risaalo uu ku boorinayo nin saaxiibkii ahaa khayrka inuu barto, nusxiga iyo wanaaggana uu la yimaado, khaflada uu ka dheeraado. iyadoo risaalo oo buug ah oo kitaab gaar oo loo qorayna way jirtaa, majmuucu rasaa'il iyadoo ku jirtana way jirtaa. ilaahay subxaanahu watacaala